waxaa la dhahaa marka qofka jacayl dhab ah ku dhaco wuxuu u dhaqmaa sida like child oo kaleeta ama cunug yariis oo kaleeta markuu la joogo qofkiisa waxaan isleeyahay sababta ka dambaysa waxa waaye comfortability uu dareemayo ama xasiloonida meesha uu ku jiro uusan ka cabsanayn qofkan inuu ceebihiisa arko uusan ka cabsanayn qofkan hadduu ceebihiisa arko inuu uga tago uusan ka cabsanayn qofkan meelaha uu ku liito inuu arko meelaha uu magaranaysa uusan ku fiicneen dabiicadihiisa xun taas waayana mida aan doonayno kulligeen yacni helno waana midaas jacaylka dhabta ah mar alaala aad ku jirtid xaalad ah qof aadan ahayn markaa iska dhigaysid aad raadinaysid perfectionist aad raadinaysid dhammaystir magaranaysaa khalad inuusan aadan lahayn khaladkaaga aad qarinaysid ceebahaaga aad ka cabsanaysid qofkeet inuu arko markaas kuma jirtid xiriir caafimaad qaba everyone wuxuu u baahan yahay meel uu ku xasilo meel uu magaranaysaa like realitygiisa uu ku dhaqmo sida uu asaga yahay yani meel uu ciyaal uu ku noqdo hawmaara qof weyn u tahay si kastoo magaranaysaa mansabkaaga iyo magacaaga u sareeyo at the end of day qofkaaga partnerkaaga inaad ku ag noqotid qof magaranaysaa cunug oo kaleeta ah qofka aad agtiisa ku dareemaysid inaadan sida saxda ah ama qofnimadaada saxda aad soo muujin karin ma aha qofka saxda kuugu ah qofka aad agtiisa ku dareemaysid xasiloonida dhammaystiran qofnimadaada dhammaystiran aadan ka xishoonayn kana cabsanayn waayo qofka saxda ah aad u baahan tahay noloshaad u baahan tahay soo uma baahnid markasta in aad soo bandhigtid dhankaaga wanaagsan because banaanka iyo shaqada iyo magaranaysaa waxbarashada iyo baad waxa ku soo bandhigtaa control ku jirtaa waa is ilaalinaysaa wanaagaaga soo bandhigaysaa uma baahnid waqti walba inaad marka wanaagaaga soo bandhigtid sometimes waxa u baahan tahay sida aad tahay inaad u dhaqantid qof kugu qaabilana u baahan tahay qofkaasna waa qofka kaliya oo sida dhabta ku jecel aadna u jeclaanaysid